السلام عليكم ورحمة الله. عن إله ومهنقيا إنه سوسو لابناي فيديو قناين الضاونين إنه عافمات قبنا الحمد لله. هذا بسيطة عوانك السرابة كسو عرقتي وحينو مانتا كور رمي دونا وشدد uguweyn aynu wax u barano ma isweydiisay maskaxdaadana ma weydiisay su'aasha ah maxay hadaynu Soomaali nahay in u taaban weyne horumar aad u sareeya ama la taaban karo hadaba dhageyso sababta waxa weeye inay inaga khalkhalsantii ujeedkii ugu weynaa ee aynu wax u baranaynay kaas oo aynu maanta kaga faalan doono barnaamijkan haddii aad doonayso inaad ogaato hadaba la soco fiidiyowga إن شاء الله وتعالى وحين سيجود قلي دونا برنامج كينا هدبا هدي آن مال يركو كابرا رجيو أما أن كوو بياميو هرتماها قدبك أوين سيدين أوهاي سنبا أما بوجدد أوين وحبرنا أما أينو دادك وحبرنا ماها إنينو وحي أينو براناي أينو دادك الأسي قد بنا تاسي معنا سمين ميسو مناها وجدد أوين أينو وحبرنا هالكاس أن كو يربياميه كما وضو ma wanaagsana cilmigeenu baranay inaynu dadka u gudbino ee way wanaagsantay inaynu u gudbino balse maaha ujeedada ugu weyn aynu wax u barano amaba dadka aynu wax u sii barno ujeedada ugu weyn waxa weeye in wixii aynu baranay in wixii nala baray in wixii intaas oo sanin nagula tacbayay ee nala barayay aynu ku keeno fikir cusub oo wadankeenu ka horimari karayo markaan ku leeyahay fikir cusub micnihiisu waxa weeye in aad dunida ku soo kordhiso wax aan hore looga aqoonin lama dhaho horumar la taaban karo wax dunida hore looga yaqaanay oon inaad keento waayo fikirka dad hore keensan balse horumar waxa la dhihi karaa marka dunida ku soo kordhiso wax cusub kaas ayaa la oran karaa horumar tusaale dhow haddii aan ku soo qabto waxaaba tahay qof wanaagsan xisaabta haddaba waxaad baratay cilmiga engineerinka haddii aad dhisto guriyii hore loo yaqaanay kaasi horumar maaha balse horumar la taaban karo waxa la oran karaa markaad keento guriyo nashqado cusub leh kaas ayaa la dhahaa horumar wadankaaguna wuu ku horumarayaa naftaadina way ku horumaraysaa taasi waxaanaad oran kartaa naftaydii waxay taabatay horumar hadda ayaanan ka dhabeeyay ujeedadii u weyneed ee aan wax u baranayay haddaba hadal badan hamama bulshay haddii aan hadalka kuu soo ujeedada ugu weyn ee aynu wax u barano amaba dadka aynu wax u barno waxa weeye wixii nala baray inaynu ku keeno fikir cusub aynu wadankeena ugu keeno fikir cusub aynu nafteena ugu keeno fikir cusub oo ay dhaqaale ku keensan karto kuna shaqaysan karto horumar lama dhaho wax dunida hore looga yaqaanay inaad samayso ee horumar la taaban karo waxa la dhahaa marka aad dunida ku soo kordhiso fikir cusub haddaba waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena oo ku soo idleynayaa maanta intan sidaan mar horeba idin yiri mar dambana waxaan idin leeyahay marnaba inaga khalkhalin ujeedada ugu weyn ee wax u baranayno wassalaamu calaykum